dadweynaha ku nool degmada Garadga ayaa soo dhaweeyay isla markaana taageeray bushaandeynta madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud aadan ku sameeyay xukuumaddiisa isla markaana muujiyay taageerista oo hayaan xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo arinta ka hadlay dadweynaha reer Garadagna hadalladoodu waxa kamid ahaa sida tan waxaan salaamayaa oo hambalyo u dirayaa aad u qaaliya oo kal iyo laaba xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Siilaanyo waxaan u dirayaa hambalyo kaliya laaba waxaan kaloo aad u soo dhaweynayaa isku shaandhayntii uu sameeyay madaxweynaha Axmed Siilaanyo magacaygu waa Salebaan Cabdi Axmed kana mid ah dadweynaha iyo waayeelka degmada Garadga waxaan aad iyo aad u taageeraynaa kuna soo dhaweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isku shaandhaynta isku sameeyay wasiirada isku shaandhaynta dawladda cusub ee madaxweynuhu isku shaandheeyay gurigiisa wasiirada waan soo dhaweynaynaa hadaan reer Garadga waan soo dhaweynaynaa isku shaandhayn wacan buu sameeyay aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa isku shaandhayntan uu sameeyay jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Siilaanyo aad iyo aad buu mahadsan yahay Axmed Cabdi Salebaan waxaan ka mid ahay dadweynaha ku nool degmada Garadga galbeedka gobolka Sanaag aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa isku shaandhaynta qiimaha weyn leh oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu sameeyay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa isku shaandhaynta isku shaandheeyay xukuumaddiisa golihiisa wasiirada dhalinyarada joogta degmada Garadga baan nahay waxaan soo dhaweynaynaa isku shaandhaynta madaxweynuhu oo isku shaandheeyay wasiirada iyagoo mar walba dadweynaha reer Garadga madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud aadan ay ku ammaanayeen dhismaha wadada Ceerigaabo iyo sida uu suurtageliyay waa Madarsan Yare TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Garadga.